الله هون حريسته أبوانك وينا حرس مغن قدكم أنت كهوسيا وحنا إله عررك دولك أبوري وقبرينا إن جنة الفردوس الأعلى وكورابيو أمة الصوماليات أقوم بدن أمان إلهين حرس مغن يقولنا سورة قلميسو إن ما أنت حرسي هلك تاريخ ديسا أن هو هذلو لكن تاريخ ديسا وحالة قد هنكريا أركتدا ونلوش كقبي وانا تأن ما أنت سارنا هاي وأنه وحير كايفين دونه هدي الله أود سره ونو قلاده حرسي ومدوا كهريي سيدا وحو أركينا وحي أهيد سيدا نبتا وقاله عررك يدولك أبوري وربي أن أدومديسو إنay u arkaan macnaheedu waxa ay tahay noloshan aanu ku noolahay aadana markii la amaamuday iyo maanto aanu anagu joogno mar walba waxa la soo raacin jiray aragti hagta qofka bini'aadamka ah aragtidaas oo ilays u noqota noloshiisa qofeed taqooyseed tan qabiil tan qaran iyo taqruumaha aragtidaas waxay reebi jirtay ama raad ku reebi jirtay noolaha nool qaab socodka noloshiisa taasoo laga dhaxli jiray aragtidaasi sharaf qiimi iyo kalgacaltooyo ummadda dhexdeeda ah kala duwanaanta ummadda xagga xoogga xoolaha iyo aqoonta waxay ahaan jirtay marka aragtidaasi ay mudanto mid loo irkado oo lagu bari gantaalo qofka aan markaa taagtiisu daran tahay ama awoodiisu liidato sidaasay wixii u noqon jireen wax seergal ah oo ummadda dhexdeeda ku meeraysta qiso yaa badan oo uu sameeyey 91 Allah u naxariistay markii Maxamed Siyaad Barre uu dabeeshaday kuna dumay carshigii uu markaa rubuc qarni salka uu ku hayay dumista carshigiisuna may ahayn wax la biciidsanayo waxay ahayd aragtidii dhabta ahayd ee la rabay inuu ku nagaado ama uu ku raago harweyn u noqota noolaha uu markaa hoggaanka u hayay ayuu ka wacday aragti dumis oo liidata oo burbur salka ku haysa ayuu door biday waxaanay kaliftay in uu isoo cagacad oo aan qiimo iyo sharaf badan lahayn in uu dabeeshado buur dhuubana salka dhigo aragtidu waxay ku bilaabanaysay oo xirsi ku furfuray bismillaahir rahmaanir rahiim ilaa yeershaa waa baashe yeershaa macnaheedu waa dictator ilaa yeershaa waa baashe la tashadaana waa bambaanshe warbal horta maxaa Stalin xabaashi looga soo qufay maxaa taalooyinkii sharafta oo Lenin loo burburiyaa maxay marantidii Mawtisinton maxkamadda horteeda isugu qaawisay muxuu Fidel Castro leeyahay sidii ay dibadeedkii horta waligiin iyo waaqin ma maqasheen buurdhoobo jeeri yeershaagii Maxamed Siyaad Barre uu ku go'doomay ilaa waabaayadii yeerisnimada lahankeeda iyo doogteeda lagama buskoodo Muqdisho iyo Moscow yeershaa baashay Muqdisho si burburka oo siidar tan ka kaaleeyateeda kala waa dhab maxaa dhaba shan baa dhaba in alla nool yahay sahayana yahay Allahu laa ilaaha illaa huwa al-hayyul qayyum
inaan lula iyo hurdo toonaya qaban laa ta'khuduhu sinatun walaa nawm inuu wax walba uuntay danqumiyoodana yahay waa wakiile inaanay danqumiyo kaluusan u ogoleen anlaa tattakhiduu min duuni wakiilan allahu khaaliqu kulli shayin wa calaa kulli shayin wakiil sideed ahaanba jeer loo geeyo inaanay xaajana go'i karin wa ilayhi yurjacu alamru kulluh jeer diiwaankiisa la gasho xafiiskiisuna soo saxiixo inaan dalka iyo dadka toonna waxba ku dhici karin maa asaaba min musiibatin fi lardi walaa fii anfusikum ilaa fii kitaab min qabli an nabra'aha haddaba hadday shantaasu dhab tahay in talada alle loo gacan dhaafaa su'aabi iyo fuduul ma aha lixdii dowladdii maxamed siyaad barre oo cudud weyn oo ninkan markaa odoras kale si wax kale aan wax u odorasi karin u arkayay inuu quwad leeyahay iyo xirsi meeshuu ka taagnaa xirsi waxaa u muuqatay aragti liidata ninka qaataa in uu liid ku idlaanayo burburna uu ku dhammaanayo isagoo sidaa uu arkayay 76 ayuu laba mathal sameeyey mathalna waxay ahayd ina siyaad barre oo markaa ugu sarreeyey dowladda iyo saraakiishii la qabatay waddanka oo kooxa oo dhinaca iyo doctor yuusuf allah u naxariistee waad wada garanaysaan waa doctorkii qiimaha iyo qaayaha lahaa ee tuberculoska madaxda u ahaa qaybta qaaxada aqoon fiicanna lahaa ilaahay ha u naxariistay isaguna waa godku ka hooseeya maanta jannatul firdaws la'alaana ilaahay ha ka waraabiyo ayuu xirsi maakub u soo qaadanayaa iyo raguu yuusuf hogaaminayo oo dad sano wanaagsan labaduba marka cabir wuxuu ka bixinayaa ina siyaad barre iyo raggiisa rag qurux badan oo dhalaal weyn oo dhabana cascas weeye ku dangiiga daabado qurux badan aqallo qurux badan gala cunno maaragtay markaa ku nool adigu nolol qiimo leh oo rafaahiye leh laakiin dhumucdaa iyo dherarkaa iyo waxa dhalaalkaa ka muuqdaayay macno may samaynayn maxaa yeelay guntii gudahay ka dilaayeenoo waxay ahaayeen dad aan ka tarjumayn wixii qiimaha lahaa oo ahayd kalgacaltooyey in dadka sama lagu maamulo ragga kale oo yuusuf hogaaminayay boggayo beerkaa isku dhegsanaa agabkooda iyo hugoodaba waxay ahaayeen waxaan macnaha aan ka muuqan nolol ka muuqan laakiin waxay ahaayeen dad garashada ka qoyan oo qiimo weyn leh oo macnaha fikrad sare oo nololeed haysta waxa uu marka ku cabiro wuxuu yidhi 7 qooqaagu saaka waxay ku waabariisteen qoomamo walwal quus iyo aayatiin abaar ah quruxda raaxada waxaa jamata hooga villa Soomaaliya iyo ciidamada loo tababaray inay cishaan midna lagu ladiwaa oo nolosha jaahilnimada sida ah 7 doctor yuusuf saaka waxay ku waabariisteen badbaado iyo diilo aayatiin laacahaya jacayl iyo isu qalbinimo dhexdooda ah
Thank you.